gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gudoomiyaasha degmooyinka qaybta wali cadde taliyaasha saldhigyada labada dhinac nisa iyo booliiskaba gudoomiye ku-xigeenada degmooyinka waaxaha iyo laamaha iyo dhammaan intii fadhisa mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu assalaamu calaykum gudoomiye aadaan ugu faraxsanahay galabta caawa inaad naga soo qayb gasho shirka qaybta oo aan u dhannahay dhammaanteen shirkan waa shirkii labaad oo muddo 2 bil ah aan ku qabanno qaybta 2 bil ka hor waxaan ku qabannay degmada Howlwadaag caawana degmada Hodanaan joognaa muhiimadiisa shirkan waxa weeye wada shaqaynta laamaha amniga iyo maamulka sidii u wada shaqay lahaayeen maadaama dalku uu dagaal ku jiro xaalad kala guuraan oo dalku ku jiro shaqooyinka in la daadajiyo oo shaqooyinka ay hoos u daadegaan gudoomiye waaxeed iyo gudoomiye laameed iyo tabeelle guri gudoomiye muxuu ahaa hadaan loo xisaabin oo kontakii guriga la isku xiro aan gudoomiye tabeelle loo sameyn cadowgan cirka kaba imaan waxay ku dhex jiraan dadkan aan inteenan mas'uuliyadda maamul iyo amni u nahay dhexdooda ku jiraan haddaan shaqadana la daadajin cadowgan lagaba adkaa karo dalkii dagaal ku jira gobolkii Banaadirna dagaalka waxa moodaa xogaa wili in sidii la rabay muxuu ahaa sidii la rabay waxa weeye shaqadan in la daadajiyo oo muxuu ahaa laamaha iyo waaxaha iyo tabeelayaasha iyo taliyaha rugta taliyaha saldhiga dhammaan in la wada shaqeeyo anoo ku hadlaya afka qaybta wali cadde booliiska iyo nabad sugidaba gudoomiye waxaan ballan qaadaynaa inaan dhankeena wada shaqaynta furno oo maamulka maamulayaasha degmooyinka iyo annagu inaan isku xirnaano wixii hore haddii hore khilaaf u jiray oo taliyaasha saldhigyada iyo gudoomiyaasha degmooyinka awl ay kala socdeen awl marka ugu badan gudoomiyaasha degmooyinka taliyaasha saldhigyada waxay isku arki jireen warqad fasaxa oo gobolka Banaadir ka soo baxda iyo guri la dhisaayo meelahaas la isku arki jiray laakiin hadda waxaan ballan qaadaynaa in shaqooyinka la isku arko habeenkii muxuu ahaa meelaha targetka iyo meelaha laga shakisan yahay in gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhiga ay hormuud noqdaan in habeenkiiba waax la baaro habeenka caaw hadii waaxda October la baaro habeen dambe waaxda kale la baaro habeenka ku xiga waaxda kale la baaro cadowgan muxuu ahaa guriyaha ka soo dhex toosaya oo guriyaha dhexdooda wax ku farsameynaya waa laga adkaa karaa gudoomiye waxaan ugu soo noqonoqotay laamayaasha iyo tabeelayaasha xuquuq ma leh in xuquuq loo raadsho si cadowga looga adkaado dalku muxuu ahaa shaqooyin dheeraad ah hadda noo yaala caasimadii bay la jaan qaaday wafuud caalami ah ugu soo fool leh in muxuu ahaa boorka la iska jafo oo shaqooyinka dheeraadka noo yaala iyo habacsanaanta la is aruusho shaqada muxuu ahaa la wada galo la isku xirnaado gudoomiye waaxaha iyo gudoomiyaha waaxda iyo taliyaha rugta inay inta isku xirnaadaan iyagu waxay matalayaan degmo dhan ay matalayaan marka warka waa soo gaabinaya shaqooyin badan oo yaala mas'uuliyad badan oo taala yaanan muxuu ahaa meelihii hore ay muxuu ahaa degmo maamuladii hore ay beeleen yaanan beelin 2023 aan ku jirnaa aan la jaan qaadno marxalad cusub iyo isbedel cusub iyo wajh cusub iyo muxuu ahaa shaqo cusub ayaa naga sugaya maalin kasta dalka waxa ka dhaca magaalada aan caasimadda waxa ka dhaca qaraxyo laga hortay karo waxa looga hortay karaa gurigaana la baaraya kana la baaraya kale laga helaya intaan hadii mid kasta mas'uuliyad u hayo oo hoos u sidaadijiyo oo xaafadii ay community yeelato wiilkan ardayga iskoolkii ma aadamsa meel kale u shaqo tagaa wiilkan gurigan ka toosa waxa macquul ah suuqa xoolaha iyo degmada Hurwa inuu qofka soo dilo adna hadhow ku soo seexdo asoo masaakiina hadhow muxuu ahaa maamadii ordis iyo odayga ordayntii saldhiga yimaadaan wiilka maxaa lagu haystaa arday u iskool aaday arintaas waxa muxuu ahaa looga hortay karaa ayadoo la isku xirnaado shacabkii iyo maamulkii iyo laami amniga inay isku xirnaadaan fadhigan fadhi ka balaaran oo shacabka afarta qaybood degan ay qayb ka noqon doonaan la soo xul doono ayaan gudoomiye qaban doonaa waxaan ugu soo xigi doonaa banag faleeg weyn garoomaan leenahay garoomaha saan isku keenaa dadka shacabka waa laga hadli doonaa bulshada inaan gacan siin muxuu ahaa hadda waa lagu kacay nimanka ogtiin bangiyada laga xire
gobolladii laga soo faaruujiyay meesha ay ka dagaalamayo caasimadda oo boorarka xataa wadaadkii muxuu caal dheere uu ka hadlayay boorka uu ka hadlayay magaalada Muqdisho laga sameeyay banaanka laga soo sameyn waxa la rabaa degma laga sameeyay waxa laga sameeyay tabeela laga sameeyay intaas iyo limida haddaan socono oo guri kasta la galo gacanta lagu soo dhigi doonaa waa maasin. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.